متى يروح أنت بدن أي هلايسو والبهار فالله وقت كاي واحد قصة ويران له دقيقة هذا كور واحد ترينين بقرة وحولها وزير كسايا مال ويري وحونا ويدي قلت أنت بدن محل مرجيسناي أنا قدر ما والك والبهارك أرين كاسنا سوى هون كسرنين خادمك هو فرحسين sida mid haysta wax kasta aniga wax kasta haysiina maxaan u dareemayaa walkii walbaarka wasiirkii ayaa dhow la cadeeyay waa uu qasbay waxa uu la yaabay su'aasha fududkeeda uu weydiinay waxaanu ku yiri boqorkii horta miyaadan isticmaalin qaacidada 99 boqorkii intuu soo jaleecay ayaa waxa uu ku yiri maxay tahay qaacidada 99 okay waxaad samaysaa warqad soo qaad waxaad ku qortaa 100 dinar kiishir ma soo qaad waxaad ku ridaa 99 waxaadna ku dhajisaa khaadimka gurigiisa warqada lacagtana dinarka dhig gurigiisa sidii ayuu sameeyay khaadimka ayaa soo baxay yar kadib waxa uu arkay 99 dinar laakiin warqada waxa ku qoran 100 dinar waxa uu niyadiisa geliyay in halka dinar ku soo lumay wadada dhexdeeda markii alaabta la soo waday way markan loogama dhigin hadiyad 100 dinar farxad ayayna wahay waa uu baaray waa ay waayeen sidii reerkiisii waxay ka murugoodeen halka dinar ay waayeen ee wadada ku soo dhacay nasiib darrooda hadaba maxay tahay qaacidada 99 badankeena waxaynu wada haysanaa 100% nimcooyinka Ilaahay inagu manaystay inisi laakiin waxaynu ka murugoonaa hal wax aynu weynay sida khaadimka oo kale waayo maalka ayaa waxa uu ka waayay hal dinar ninka boqorkaana sidoo kale maalkiisa marka uu waayo waxa uu dareemi jiray murug laakiin qaacidadana waxay ku leedahay xasuuso 99 kale ee soo haray kuwaas uu Ilaahay ku siiyay dadka qaar laga yaabaa in aysan haysan waayo waxaad niyadaada gelinaysaa markasta oo aad qaacidada isticmaashid inuu Ilaahay ku siiyay arag inuu Ilaahay ku siiyay aqli inuu Ilaahay ku siiyay lagu aad ku socotid yuusan ku hilmaamsin shaydaanku waayo waxa uu yahay cadawgaaga koowaad بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا